markii horena xamar tagay ee ku biiriyay in labada wadan ay isku soo biiraan laakiin intooda badan majority-gu ay garteen markaa in ay wadaagaan dan iyaga u gooniyay inay wadaagaan finally Somaliland waxay wakiil ka tahay dad dhaqan gooniyo leh soo aad garmaysid دوام حي ستوب أنا ودون دايدي ما دمايسن dood buu noo abuurayaa maxaa ku leeyahay culus kolkaas aanu garanaysa doodda loo maamulo unacceptable this is very serious business mayaanu halkaasaan ku dayn raalliga ahaad halkaasaan waxa weeye cadaaladdu iyo fairness-ka oo loo baahan yahay professorada iyo qof walba halkaan taagan inay fahmaan taas oo ah in qofka waqtiga aan siiyo waxa weeye muhiimaddu waxay tahay waxa weeye dood culus baan yes waa bilownay waqti badan bay heli doonaan way ka jawaab doonaan su'aalaha laakiin waa inaan noqdaa qofkan professorka intuu hadlay iyo Maxamuud Geldoon iyo Maxamed Ismaaciil waa inuu qof walba hadlaa weeye marka waxa weeye I have a lot of respect for the professor and all of the guests who are here and even you the people who are attending this town hall meeting the most important thing is justice so now marka ma runness man haliga raali lahaado is just about waxa waaye cadaaladda waxaan marka dhex galaysid waxa weeye waxay u baahan tahay dulqaadkeeda I'm glad inaan handle gareyn karo si loogu talagalay hadda waxaanu bilaabanaynaa su'aalaha before su'aalaha intaan bilaabin ka hor waxa weeye qof walba oo halkaan jooga oo waxay haystaan 1 minute ay ku ribaal gareynayaan kadibna su'aalaha ayaan furaynaa Xuseen ayaan ku bilaabayaa Professor Ahmed okay su'aalaha ayaan furaynaa line kala soo istaago أنا مدبان دوني يعني نراه إذنكم مهتسن أنا ودود بان سوقرتي دود داسو أم بيجي هاي بسنت أم بيجي أنا يبسم من وان سوقرتي ويسور تجلي كري ويدي دود يدي أو بوحدين هالكن صار ديجو سؤالها قار كود بيكجواب لهيد marka waxaan goostay in aan dood halka aan ka qayb galin waayo waxaan soo dhigtay iyo sidaan doonayay inuu soo dhigo way suurta gali kari weyday su'aalaha qaar bay ka jawaabi lahayd marka raali halayga ahaad aniga hadalka intaas ku dhigay Assalamu alaykum wa rahmatullahi